sharka iyo khayrkana adduunkana la dhigay daarta sharka laga qaadana waa halkan daarta khayrka laga qaadanayna waa halkan khayr iyo sharkuna waxay ka soo baxayaan waa bini aadanka jirkiisa khayrku waxa uu ka soo baxaya waa qofka bini aadanka jirkiisa sharkuna adiga buu ka soo baxaya khayrku carabkan uu ka soo baxaya kalimatu tayyibatu sadaqa bu nabigu yiri kalmada wanaagsan hadaad ku hadasho waa sadaqad weeyaan hadaad kalmad cay aad ku hadashana waa dambi weeyaan ishaadan hadaad ku fiirisid maaragtane aayaadka kawniga sida ilaahay cirka iyo dhulka u abuuray aad ku eegto ilaahay ku xasuusatana ajar ayaa lagu qorayaa ishaada hadaad macaasida ku eegtana dambi ayaa lagu qorayaa gacantaadaas hadaad qofka muslimka aad wax ugu qabatood ku caawisidna ajar iyo xasanaad baa lagaaga qorayaa haddii gacantaada ummadda aad ku dhibtidna dambi baa lagu qorayaa waa isla gacantii uma marna khayr samaynaysa marna shar bay samaynaysaa isla carabkii baa marna quraan akhrinaya marna uu heesaya isla dhagtii baa marna quraan dhageysanayso xadiiska dhageysanaysa marna hees iyo laqwi iyo cayb ay dhageysanaysaa isla calooshii baa marna xaaraan galaysa marna xalaal buu ay galaysa isla lugtii marna miskiidka u soconaysa marna xagga sinemaha iyo maaragtay fiidiyooga iyo macaasida u soconaysa makiinatul a'maal qofka bini aadanka jirkiisan ayaa acmaashu ka soo baxaysa sharkuna adigu ka soo baxaya khayrkuna adigu ka soo baxaya ilaahayna bini aadanka wuxuu kula tacaamulaya amalkoogu kula tacaamulaya mooyene bini aadanka waxay haystaan dibadda ka yaala ilaahay bini aadanka kula tacaamuli maayo lidalika nabigeenu alayhi salatu wasalaam isagoo makiinada dadku inay toosiyaan makiinadan ilaahayna siiyay makiinadan bilaash baa lagu siiyay bilaash indhaha lacag kamaad bixin dhagahana lacag kamaad bixin gacanta lacag kamaad bixin lugahana aad ku socoto lacag kamaad bixin carabkana aad ku hadlaysa lacag kamaad bixin sankana aad carfiga ku sheegaya waxa qadmuuni wax udgoon ku kala sheegayna lacag kamaad bixin ilaahay baa kugu deeqay tabaaraka wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أديكو ير أو وحبا أنا قرنين أيا إلهي علوش ويدا كاسو ساري مركاسا إلهي مقلكي يا أرقي يا قلبي جيب إلهي كوكو ديقي وحاسو النعمة محل قوسيي إنا الشاكر نغطال لك الربا وإلهي كل شكر ديد موياني إنا إلهي عاصد لك مرة عملك وناكسن هل كانوا كصوبحيا جركن عملك حنا إسلا جركن أبو كصوبحيا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون بإلهي نفول بقيرده ويدمينيسا ويدمينيسا ماها ويدمينيسا موتك ومحي موتك وحويان وبريج وبوندو ويان ودحيس أدويدني آخردا هبل بعد انتي هداد مقشد waxay ka dhigan tahay noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay dadna noloshii aakhirada qofka u bilaabantay noloshii adduunyada way dhamaataa inta ayna ka dhamaanin ba fursad lagu siiyay ee makiinadan maashinkan ilaahay ku siiyay ilaahay daacadiisa u isticmaal araga ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay ha ku caasin hadalka ilaahay ha ku caasin gacantaada ilaahay ha ku caasin calooshaada ilaahay ha ku caasin waqtigaaga ilaahay ha ku caasin dhaqaalahaaga ilaahay ha ku caasin cimrigaaga ilaahay ha ku caasin hadaa nicmada maanta adduunka dusheeda sida aduga aad doonto aad u isticmaasho waxa ka dambaysa فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون با إلهي يري فوربك يا محمد ربك يا كدارتي با إلهي إليهي لنسألنهم أجمعين لما أنتود با إلهي إليهي نعمة دين تكون سننا وويديننا نعمة دي عمدا هيدي أدوية كنت تعلق سنيد كويل سينا والله ويدين دونا عما كانوا يعملون وحي أدونك دوشي كو عمل فليين سوقبتين وويديننا با إلهي نعمة إسلامك تدك مسلمين تنا نعمة أوجه الرئيسية لقى حسابي بالنبي يقول والصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة عملك أوجه الرئيسية أبدونك مالك قيامها الحساب دونه وصلاة أبو النبي يقول هذه الصلاة دو حاجتي أتوسط واللي بعني ونبت قلي هذه الصلاة دو كحما تبو النبي يقول هو قفقاس خسارة أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام نعمة دا سوى نعمة الدين صلاة دا أوه رسول قفك اللي ويدين دونا نعمة دا كلام مارك تاني مادقة أما نعمة دا خلقك يا أبورك نعمة الإيجاد نوحا اللي ويدين دونا قفك هي نعمة الإمداد لبشي با اللي ويدين بو النبي يقولي ألم نصحح جسمك ونرويك من الماء البارد
ilaahay baa addoonka ku odhan doona shakalkan iyo shak iyo suuradan quruxda badan ee bashariga miyaan anagu kugu deeqin dameer waan kaa dhigi karaynay ay waan kaa dhigi karaynay jiir waan kaa dhigi karaynay doofaar waan kaa dhigi karaynay bashar bini aadam baan kaa dhigne suuradan quruxda badanna baa ilaahay ku odhan doonaa miyaan anigu kugu abuurin biyaha qabow eed cabbaysana miyaan anigu kugu deeqin baa ilaahay ku odhan doonaa makiinadan bilaash laguma siina xisaab baa ka dambaysa waqifuuhum innahum mas'uuluun baa ka dambaysa joojiya maanta waa maalintii la weydiinayay baa ilaahay odhan doonaa maxaa la weydiin laa tazuulu qadama cabdin xataa yus'ala can cumrihi hadduu ahlaljanno yahay iyo hadduu ahlannaar yahay buu nebigu leeyahay lugtiisu banka qiyaamo dhinac u dhaafi mayso ilaa nicamtaa laga weydiiyo oo la xisaabo cimrigiisii wuxuu ku soo dhammeeyey cilmigii ilaahay bare wuxuu kaga camal falay dhallinyarnimadaadii waxaad ku gaboojiseed ku baaliyaysay ee dhallinyarnimadaadii ay kugu dhaaftay dhaqaalihii halka uu kaa soo galay halkaad ku bixisana waa lagu weydiin doonaa afartaa su'aalood cimrigii cilmigii maalkii iyo maaragtaane quwaddii afartaa ilaa qofka la weydiiyo la xisaabiyo banka qiyaamo buu nebigu leeyahay dhinacna loo dhaafin maayo ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إلهي بالله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رسول كان عليه السلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيا كصوبح قريس مالين ظهر أسقوا قاجونا مركز عمر لكل يا عمر ساعدنا هذيك محاكو وضع مركز يا أبا بكر قاجان الله سعدا بودي قاجو غير كي وحن عنمي لأن وأبو بكر عمر لبدو دي بإسراعي أيكم مقالة مدينة دحو ريقيا وحي أركي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركز النبي كويري محاسا عدن إني وقت الظهيرة وياني مركز سيدة الجوع يا رسول الله قاجان برنانك وقصوا بحني هذا غلط ودحف النكري ويني إنك أنا ما أنت واحد تتكينو أي كوكف تمام نيو وقتك ما أنت الكي كسود الله مقايدين تقنا هل كان كسوق عشينا هل كان كسوعنا هلب قيل ما شاء الله هلب قيل يعني قيل إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي اللي بدي يصير صاحب أبي بكر يا عمر سد حدود مقالة المدينة أي إسكاق صهر بحين وقت الظهيرة مرقاس النبي يقول يا أبو بكر يا عمر ساعدا وحل كل لمحايني وضع مرقاس سيدنا الجوع يا رسول الله قاجا يا نوضا قاجو gaajadu ceeb maaha gaajadu dib u socodnimo maaha dad baa moodaya gaajadu inay tahay dib u dhac wallaahi buu nebigu yidhi anigana igama soo saarin aqalkayga ilaa waxay ninkan iga soo saaray mooyaane arrinka aad la soo baxdeen baan anigu la soo baxay buu ujeeddo kaleba uma socdoba وإسرائيل نس صحابي وتجين نجي صحابي جيب النبي أبو بكر يا عمر مرتقى ذي وعنتير وما أنت أي عنان مركي هلين أي نبي كويري إنكو دركس إنكو قاجونا يا دخل كاسوق شين كما بحن إلا إنكو علوش النبي حسن تيمو يعني لكن والله ما كل دارتي أبو نبي يقولي نعمة ده هلك ما أنت أتكو هالشين قيامها ولا نويدين دون أبو رسولك كيني وما لنكني ونن صحابي والنبي محمد أبو بكر يا عمر ومرتقى ذي كمسير يا أرقع يربو قل انت ابو نبي محمد وكل يحيى أبي بكر يا عمر والله النعمة دا سوال الدين دون أبو كوي كم يا ما أنت إلهي إنك إنه نعمة إلهي وصمه وإجني dadku maanta inta ka maqan bay eegayaan nicmada intay haystaan ma eegaan nicmada diintana waa lana weydiin doonaa nicmadan maaragtaan iijaadka iyo nicmatul imdaadna labadaasba waa lana weydiin doonaa nicmada diinta waa lana weydiino waa amaano weeyaan diintu nicmatul iijaadi wal imdaadna waa lana weydiin doonaa ilaaha azza wa jalla basharka dhigay ku jirsiiyay waxaad haysatana ku siiyay maalin baa ilaahay addoomihiisa u sugi doonaa una weydiin doonaa yowma alqiyaama
marka ha ku mashquulin ashyaa waxan dibadda ka yaala ha ku mashquuline amalkaaga ku mashquul amalkaaga hagaaji waliba amalkaagu hadduu hagaago noloshaada adduunyada oo dhan baa ku hagaagi aakhiraduna way ku hagaagi hadduu laakiin amalkaagu baanaado noloshaada adduunyada lacag ma hagaajin karto dad baa qaar baa haysta nolosha in lacag lagu hagaajiyo say nolosha u hagaajiyaan baa lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxa lagu hagaajiyaa iimaankii amalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxa lagu hagaajiyaa xiriirka adiga ilaahay niga dhaxeeya lagu hagaajiyaa khutbatul jum'a markuu nabigeenu ka bilaabay masjid al-jum'a fi madinati al-munawwara al-fadi nabigeenu ku hadlo way qoran tahay waxa kamid ahayd erayadii nabigu saxaabada uu ku yiri adoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xiriirka ka dhaxeeya ilaahay wuxuu hagaajiyaa isaga iyo adoomaha xiriirka ka dhaxeeya imaam shaafici rahimahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yiri murugtan ka muuqata waa maxay masiiba kugu dhacday markaasuu lahaa nin masiiba ku dhacday baan ahay oo masiiba dadka kale aan ku dhicin oo tooda tu ka weyn ma kugu dhacday markaasuu lahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yiri markaasuu yiri dadkii iyo aniga noqono waan kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ilaa heshiisa ma jirta buu yiri hooyaday waa dagaal baa naga dhaxdhacay aabahay waan isdirirnay reerkaygi waan kala tagnay qaraabadii waan kala tagnay jaar waan kala tagnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam shaafici rahimahullah markiiba uu gartay bifaraasatihi culimadu faraasay lahaayeen nuur al-iimaan iyo nuur al-basiir ay lahaayeen wuxuu arkay markiiba adoonkan isagii ilaahay xiriirka u dhaxeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaas uu ku yiri su'aal ma ku weydiiyay buu ka yiri wuxuu 100 qof raali galintooda iyo mid kaliya raali galintiisa waa yama buu ka yiri markaas uu yiri mid kaliya 100 qof inaad mar kaliya raali galisa waxa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raali galisa wuxuu yiri waliba midka kaliya hadduu raali isagu ka noqdo oo isaga raali galisid 100 ka kale isaga ka raali galin markaas waa kee markaas waa Allah buu ka yiri Allah wuxuu halka numberkayga qaldanaa baad ii sheegtay wali Allah ka jazaaysiyo qal numberka ma saxaya xiriirka ilaahay inaka noo dhaxeeya haddaan adkaynoon hagaajisano xiriirka iyo makhluuqa xiriirka inoo dhaxeeyana ilaahay isaga inoo hagaajinayo gurigaagaad ka baxaysaa waxaa tidhi bismillaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwwata illa billah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatul camal carabkay ka soo baxaysaa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismillaahi baan ku baxayaa tawakkaltu cala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwwata illa billah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu malihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macsiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa ii dhib yaraynaya ducadaa baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay waa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaalayna waa lagu qabto cid kale ku qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa laga ilaaliyay watanaha anhu shaytaanna uu ka leexdaa meel ku soo maray ma jirto shaqo tag baa laga yiraahdaa waa ducada yar gaaban bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ducadaas la doonaya dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan imaam an-nawawi rahimahullah kitab al-adkar waxa uu ku qoru ku jamciyay min dhalashada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo ila eelka la dhigay ducadii lagu akhrinay buu soo qoray adkar an-nawawi markii kitaabka sheekhu uu sanifay ee maktabada la dhigayna reer Dimashq way isku sheegeen kitaabka baa soo baxay kitaab al-adkar baa soo baxay waa kitaab ka waramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhrinayo ilmaha yar ila qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu
markay reer Dimashq ay isgaadhsiiyeen yidhahdeen kitaabka Abu Sheekh Sanifay kii yidhaahda kitaabka lacagan ku iibsado ku gato ma haysta kii yidhaahda waxa lagu oran jiray bici daara washtari al-adkaar war daarta iibiyo kitaabul adkaar iibso daarta iibi nagu daarta maxaanu iibinaa dhoof qaxooti aqalkiibuu iibiyey maqle dalkiisiibuu iibiyey ilaa ayna halkuu socdaa ilaa bilaad al-kufri buu socdaa dhulkii la doonaya in laga soo hijroodo ayuu intuu daartiisa iibiyo u hijroonaya ciyaalkiisa islaantiin afka ku qaadan afka oo la baxsanaya maxaad u wadaa xageed u wadaa wadannadaas aan geynaynaa buu yidhi mid baa yidhi xageedii ciyaalka wadannadaas aan u dhoofinaynaa buu yidhi oo dalkeennana afrikaan nabadgelyadeeda la iskuma hadlayn kara buu yidhi oo halkaa been nabad taalla nabad run ah damaan weligeed inay dhibaato ka dhacayso miyaa waa damaan yaa kama dhacayso afrika buu gule lama garanayo 30 sano soo socota waa isbedeli kartaa tacliin male dhakhtar male shaqo ma jirto nolol ma jirto nabadgelyo ma jirto dhulkaas nabadu taalla dhulka inuu ubadkiisa u qaado daartu u iibinaya muslimiintu dadku waagay iimaanka iyo amalka saalixa iyo ducooyinka nabiga ay yaqiinsanayeenna waxay oran jireen daarta iibi kitaabul adkaarna iibso daarta iibi ducada yare gaabaneeg yaa guriga markaad ka baxaysa ilaahay kugu ilhaamiyay bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ducada ninka ilaada buu nabigu leeyahay afartaas loo bishaareynaya waad hanuuntay oo dariiqii mustaqiimka ayaad ku dhacday waa ku fiita muraad wixii adduunyada aad ka lahaydna waa lagu qabto cid baa ku dabooshay waa wuqiita shar iyo balaayo masiibo wixii adduunyada jirayna waa laga leexiyay shaydaanna meel uu ku soo maray ma jirto su'aab la leeyahay qofkaas ducadaas ducadana carabka ka soo baxaysa makiinatul amal man yadman li ma bayna lihiyhi وما بين رجليه أضمن له الجنة أي إذا ما نقاضي أبو النبي يقولي عرب كيسا يا عورديسا إنه معصية ذنبك إلالين وجنة وقب اللن قاضا من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا يا رسول الله نبي محمد أصحابته قد حلو وحويري أي إيب اللن قاضية وإي كفالة قاضية إنه بني عادك وحبا ويديسا وأنا يقول جنة وقب اللن قاضا ثوبان بعد أنا أقول باللن قاضي بيودي إن بني آدم قعدت هوس لكن إن بني آدم كي يقبحي وشيئا إن بني آدم سيدا أنت لا سارا أنا أقول بالله قاضي أبو كيري شرط بالله قال يا شرط حديث كورا محوها أي أيضا ما نقاضي عرب كيسي عورديسا إنه معصية يدن بك إلالين وأنا نكون جنة وبالله قاضي لماذا حداد حفظه جنة لغو بلان قاضي من تكفل لي أي إي كفالة قاضي بو نبي قول إياهي إنو بني آدم كقعنت هوس لغن وصدا أورن أورن يقول جنة بلان قاضي ثوبان بعد أنيقا ثوبان صحابي قاس مركو دادي سويناتي سوق مقالة مدينة isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubama laga yaaba jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaco raqabadiisa inuu dagtiisa kaga dhaco ma oran jirin isoosi bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaas lagu oran jiray yaa thawban saaxibu rasuulillaahi baa tahay nin daaweyn baa tahay jeedalka agteeda ku dhacay ma natiraayda annaka noo dhiib markaas oran jiray nabi maxamed ballan la galay ballankii nabi aan la galay baan buuxinayaa buu oran jiray لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب بني آدم باهد هذا أشيغن باهد هذا واحد أشيغتا إله البابدي سمر والبان لحرين البابدي سؤال فريهين كاباهد هذا أشيغو هداد بريد إلهي آد دي سنة إلهي واكو عرون يا بني آدم كهداد بريدنا بريد يكون عيان بني آدم باهي بدن يوم
iyo bugtaa badan baa la isku nacaa taasay leeyihiin bani aadan haddaad tirahdid keen oo ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu ku cadhoon gacantan marka waxa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino maalik binu diinaar raximahullah habeenada ka mid uu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra ina yaroo shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya 3 maalmood yarkaasi cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u gee baa lagu yidhi manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii buu yimid wuxuu soo galay ina yaroo shaab oo ducaysanayo shabaabkeena iyo shabaabka isku eg cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysa ku yaallaa waddadaad saa u soo mar sidaa u soo mar mar allii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maad i taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaadaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaaca bas xidhiidhka ilaahay innaka inaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaadii subax ayuu nabigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo janaasaya aasna ka soo qayb galay abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo ziyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu yidhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahljanna buu rasuulku yidhi qabla salaat alfajr ayuu abibakr sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo ziyaartay miskiinna soo quudiyey wax soo siiyey daarulcamal bay joogeen ay garteen inay daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljazaa halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeeli galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibn aljawsi raximahullah uu leeyahay sifatu safwa qisa cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo reer maka ayuu ahaa habeenada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu yidhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaan adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono makuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tegey magaaladii kuufuu yimiday dadkiibuu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimid iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan
markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan tahay salaad bay tukataa 800 maan u malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo kaliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zayd bay ku tiri ballankeenu halkan ma hayno aakhire iska socod bay ku tiri والله يابي مقعيسين ويشيكتي مراد كو سعودنا ويشيكتي أريجينا وياجاي ورابيه با اسكت دح سعوده ولا عبيه ولا داقيه ولا جوجا وحر إن الزيدين أنا حي ونرجع أسعود أياك وشيجي وعيت الحديث النبي جماد اللودي إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف حديث النبي محمد يري أرواح بني آدمكو وأسكر إلهي واسكو حرن ويان عالم الأرواح بان وذا جوغيني لبدي الروحي هلك سر اسكو تقاني أدونكنا واسقرنا واسقرنا واسفهمي حدي هلك اسكو صوت ديدينا أدو يدنا واسديدي أرواح لنا استقاني السلامة بكتري بلنكينو نوا آخره سؤال كلامك ويدي بكتري السؤال هذا كان السؤال قابي أريقاقا ورابو كاعوني ما يمحات كو أخر ديبوري بليشيك وعيتني هلا يابن أنيقو إله خالقا ربكي حريركي نقد حيبان أتكيستون هقا جستي لبدا حريركي كد حيان إلهي بهقا جيتي إنكم أنت الدين مركا لهذا القاعدة وحنوها يسنى دين تمنفع ديد ويني آخرة وانت هلا بس waddanka Yaman bari annagoo joogno ijtimaac ka qayb galayna ayaa gaadhin lan cruiser aan hormaray xaga dambe waxa ku qornaa ad-dunya bil mal wal aakhiratu bil a'mal adduunyada lacag baa ku haysa aakhiradana a'maal baa ku haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagto hadaa dooni aakhiradu inay ku hagaagto hadaa dooni labada daarood inay ku hagaagaan hadaa dooni waxa ku haya amalka wanaagsan baa ku haya adigiyo ilaahay xiriirka niga dhaxeeyo hagaaji bas wa tamaanta bini aadanka caalamku ay garan laayeen oo cilmiga fahmi lana man habba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu bi rasuulku yiri nika jecel in arsaaqada loo waasiyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa xiriiriyo bi rasuulku yiri رزق إلا إنه واسعية ما دون إنه بل نقول رزق إلا واسعية دون يوقع عنك تال لكن حقيقة دون عيبك إنه مالك له رحم كاغا حديدي أباها هو يدا أديركا أبتغا هبر يرتا إددا إلما أدردا ولا لها قوة دلين حديدي لعقدتك لكم حديديو لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن وسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق والنبي يقول dadka lacag laguma deeqabu nabiga lacag dadka lacag kuma wada gaari kartaa dadka lacag kuma wada raali galin kartaa laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wajiga furan iyo dabeecada wanaagsan wajiga furan iyo dabeecada wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المال كيف لعقتي هل كان نقطي ما حكى يلا دتك وقيبي يقول لعقته والله قيبي وهذا نوي هذا جمعة والبمرك لقى بح صلاة الجمعة دليرتا يدتك مساكين تي ضعفاء لعقته وضصية يقول عمر عبد الرحمن بن عوف الله يري يا أمير المؤمنين بيت المال قوي لعق وجري هذا ترى هذا وضع بحية إلهي نوما كينا بلايا هدي بلايا بريت ما ضو محان قاشان كان ديغنا وسكا دفعنا ابو كيدي مركز سيد عبد الرحمن عرب كاغا شيطان باكو هلي ودي مانتا لقنني الله حجتها ووقاني شرها ابو كيدي هذا الكاتري حجتي سيلهي با إلا قني بلايا سو سوتنا شركيغا إلهي با يقبد باديو نقبد باديه بلايدي مصيبة إيمانيسا
waxaan u diyaarsaday maad garan buu u diyaarsanay maya nabi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsanay buu waa maxay ilaahay taacadiisa iyo taacada nabiga haddaan haysano balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman mayso buu ka yidhi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سيدنا عمر فاروق آيات داس أخريي آيات داس أنا خرسنا أن هيسنا هذا إلهي حرقي سهيسنا أن إيمانية تقوى كاملة عن لنا هاي عريري كستون نقوي ماذا مالك بحنا إلهي نو يلا يا أرزاقنا مالك فلين بإلهي نقسينا يا صلة الرحم رحم كل حريريو أرزاقنا ويزيادين إيسا استغفرتنا أرزاقنا ويزيادين إيسا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفرت هذه للي مادو أرزاقنا إلهي واسعنا يا تقوى دي بأرزاقنا الزيادين إيسا تقوى دي توكل حد إلهي لا تلسارتنا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا بالنبي يقولي هذا إلهي تلا ودي من إنسان تلا صار الشدي إلهي حقه ولها إلا تلا صارته صدق شنبرها وقوديا إلهي إني يقود لها برسولك يقولي شنبرته صباح دي وحي كبحي زبوري يدو على شيدو أي مرنتهي وحي سوى نقطة يدو على شيدو أي بوحدو دكان كما شقيسو بيرنا ما فلتو حول ما دقتو يا أرزاق إلهي بأرزاق توكل أعماشاasi haddii jirhkeenna ay ka soo fusho bay culimmadu leeyihiin nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno ku sug maanta muslimiintu markaad eegta noloshay ku jiraan janno ku jiri maayaan cadaab baa ku jirnaa maanta muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim dadka qaxaya waa muslimiin dadka lalaynaya waa muslimiin dadka islaynaya isdilaya waa muslimiin dadka la caawinaya waa muslimiin dadka loo gurmanaya waa muslimiin dadka xerooyinka waaweyn loo samaystee ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkayga aryaaf almadiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday magaaladii bay u soo qaxeen cumar bnu khadaab reer madiinuu tarqiibiyey waxaad haysaan la baxa buu yidhi nin walba wuxuu hayey buu bixiyey markaabaa dadkii oo dhan raashinkii la siiyey abaartiibaa daba dheeraato roobkiibaa raagay maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa markaasuu cumar bnu khadaab warqad buu u diray camar bnu caas oo masar jooga wuxuu yidhi adigaa jooga waddankii barwaaqada badnaaye webiyaalka lahaaye soo dir macaawano markaasuu soo diray maaragtaane macaawano awr raashin laga soo buuxiyey macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey haddana abaartii way daba dheeraato rooma di'ine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigii buu qalay hilibba uu ka waayay lafa mooyaane waa muxammadaa buu yidhi uu seexday habeenkii nebigu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dhibaatadaasaa nagu dhacday markaa buu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii laakiin cumaroo sidaan ku moodayay ma noqon waa ku siday ka dhow ka yidhi cumar salaaniga gaadhsii horta sidaan ku moodayayna ma noqon uu kacay nin hurdadii buu ka kacay masaajidkii buu yimiday cumar buu u sheegay cumar muslimiintii oo dhan buu u yeedhay saxaabadii fariintaa buu nebigu ii soo diree maan qaldamay bal ii sheega haa waad qaldantaa laga yidhi waad qaldantay maxaan ku qaldamay kolkay abaari ay timaaddo ee roobku nagu yaraado waxau nebi maxamed uuna baray inaan roobdoon salaatul istisqaa inaan tukanno adiguna amiirkii mu'miniintaa tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaaye dadka intood u saartid ma aragtaane musallaha intood u saarto ha noo ducee bay ku yidhaahdeen markay bannaankii u soo baxeen halka uu cumar uu ka duceeyey halkii isagoo cumar taagan ayaa fadka waxaa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka alghawthu ya abaa xafs yaa cumar gurmadkii aad dalbatay waa kuu yimiday halkii iyo koo joogaa ilaahay roobkii siiyey
salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay u daboolay macaawana u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halka maxaan ka fahmaynaa bani aadanku mar alle markay bani aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna uu sii biirayaa mar kastoo bani aadanku xagga ilaahay u soo noqdaana ilaahay xaaladooda isagaa markaa bani aadanka bedelaya muslim ayuha almuslim acmaal axkaam waxaa ilaahay nabigeena inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka o dhan bedelaysa roob haddii la waayo gaalada maanta la leeyahay teknoloji bay gaadheen horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nebi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadii iyo ducadii roobka lagu keenayuu nebiguna baray nebi reer bani israa'iila dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku laynayo salaadii casar baa gaadhay markaasay nebiga u sheegay yidhaahdeen yaa nebiy allah salaadii casar baa taagan salaadii baa taagan nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqay cadcadda sidaa ugu fiiqay waa nebi ilaahay doorto rasuula markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halkaa noo joog buuri ilaa aan gaaladaa kala baxayno halkaa ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen gaaladii bay jebiyeen way ka guulaysteen khaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nebigii ku yidhi cadceedda inoo eega weli halkii bay joogtaa soo ma joogta haa salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi markay salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba imminka iska soco iska dhac buu ka yidhi horumarka caalamku ma gaadha imminka caalamka horuu maray maxaa horuu maray birahan qayliyaa horuu maray birahan wax duubayaa horuu maray bani aadamku ma horuu marin maanta hoos baan u dhacnay innaku maanta keligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u weeciya daruurtii buu eegay meel bay ku da'day barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wewcinaya markaasuu yidhi magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlayay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tegay buu rasuulku yidhi markaasuu ka yidhi maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga uu kuu keenee wuxuu yidhi haddaad i weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega qayb beerta ayaan ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waan sadaqadaystaa buu yidhi xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa muxuu kugu sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adig iyo ilaahay xiriirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo taakhiro waxba kaa xumaan maayaan innaka waxaan doonaynaa wax walba inaan ku hagaajinno lacag wax walba inaan ku hagaajinno awood wax walba inaan ku hagaajinno qabiil wax walba inaan ku hagaajinno caqli may nolosha adduunyadan ilaahay baa haya nolosha aakhiradana ilaahay baa haya ilaahay nolosha adduunyada iyo taakhiro labadaba wuxuu ilaahay kuugu hagaajinaya waa diin waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'minun faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura saci baa la sheegay saci mashkuur ilaahay u sacyi ninkan beertiisa inta ka soo go'da ayuu xuquuq alcibaad buu ka ilaaliyey bas xaqii addoomuhu ku lahaayeen waa sadaqadda ku kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn 1,000 dirham 1,000 diinaar wuxuu yidhi lacagta hanku amahiye xadiiskunaas waa saxiix hanku amahiye
ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa billaahi wakiila ilaahay baad u raaciyo iga wakiila buu yidhi markaasuu wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad badda u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam kolkay gabalkuu sii dhacay haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dilaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalintaa lacagta uu idayminayay marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancaye ilaahow maanta aniguna waa anigaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayoon la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaa noo dhexeeye warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey maro kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray كم مسافة أنت ولا حيس لا ندري أنت لكن سيد الضوء يا لوايو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغى إلهي كعب صدا حق إلهي إلهي حق بن آدم كان إسك إلهي أمورتي صورنا با إلهي دو حق دقنا فضي حان الله شنقوات كيمات qof kasta maanta la fadhiiso muslim oo cabanaya madaxdu way cabanayaan oo shacabka ka cabanayaan shacabka muslimiintu way cabanayaan madaxdooda ka cabanayaan aabuhu uu cabanaya inanku ka cabanaya inanku uu cabanaya abihiibu ka cabanaya inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarku ka cabanaya qaraabadu ka cabanaysaa qof kasta waraysa waa kaase wuxuu ku leeyahay xaqaygiiba iga maqan حقاق إلهي كقادو حق بني آدم لكن اسكا إلالي تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم بنبي يقول صحابة مركي ويديين ما نحضو هذا حقيقة نقد هذا حقيقة قاتانا بالكورن مرقابو نبي يقول حقين نقول أيين إنكم أقودوا اسكا إلالي حقين إلهي وكقادي دون نبي رسولكم يقول لكن إنه حقه إسكايل على يوهالك ويمدي قريجي مبدا كتوري قريجي أبيها دول صدينا يا أي حقيقة للسوق علي كي كلا مركو أي واحد دونه وصوص عطية مركب أيوني بالقريجي يا ربدا دول سعداء ما دسك قادتي دول غير كاجي حابها ودك تدعوا أججب صدام الكو قاضي غير كيبو أجيي وأججبيي ورقدي بكسر بحدي أو كلا فري لعكتو سديدية يا سوق أرسي يا سوق أرسي إلهي لا سوق أرسي إنك واحد مودنا النظام كان عالم كأنه كمبيوتر أدوية كسعته وحي أدوية دولة السمايين عالم كان نظام كإلهي بكسعدا ونكسع عنجري ونكسع عندنا لكن ذاتك النظام كإلهي لا تعامله ما أنت عويا قصص كاسود النبي يقول نوقف شيء يا وذاتك النظام كإلهي كجفة إيديستي إيماني الله كعبسي الدين يتقوى إنك أنا ما توح علي نقول قفلي صلاة منفعة دو قبرك كسو الدويدا شقا وحقوها إذا شقو وكذا اللي يريد أن يبدأ يكون مادين بدأ صحراء يكون مادين بريد بين لبدين السركين وكسو بدو على يقرأ عليه هو maalinta badiwaan mid waxaan soo raacaan waayay awal walin hawal bahaarin ilaahi maraga aad ka dhigatay kafiilka aad ka dhigatay ayaa amaanadii ka soo gudayo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yiri isla maalintiiba way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxa la inoogu sheegayaa qaar quraanka ilaahay ku sheegay قال النبي محمد حديث صحيح إنه قل شيء وما حيويان
waxau nabigu inaga doonaya oo nabigu inala doonaya inaan noqono kuwa rabbaaniyiin walaakin kunu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa uu arkayo inuu aaminsan ka maadi balada maadi waxa uu arkayo inuu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nabigu ay sheegeen uu rumaysan yahay warka ilaahay nabigu ay sheegeen marka inaan amalkeena hagaajisana adduunka la inoo keenay wallahi amalka haddaan hagaajisano nolosheena ilaahay ba hagaajin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi maalintuu dhimanayo xoolihiisii oo dhan u bixiyay waxa lagu ciyaalkaaga waad kaga tagtay faqri baad kaga tagtay wuxuu ciyaalkayga diin baan baray buu ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shariicada islaamkaan baray oo xiriirka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiintana ilaahay baa tawalliyay buu arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buu ciyaalkayga waayo ilaahay baan baray buu ilaaha qaniga ku xidhay buu ubadkayga haddaan uga taga xoolo buu dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad uga timid xoolaha ay ku tumanayaan la oran maayo kulligood baa leeyahay maalintuu dhimanay waxba uga tagin laakiin kulligood wada aqniya baa ilaahay ka dhigay kana diin baa la baray inaan ubadkeena diinta barno oo inaguna jirkeena diinta barna loo baahaya jirkeena xubnahan gacantu ahkaam bay leedahay dhagtu ahkaam bay leedahay ishani ahkaam bay leedahay arabku ahkaam buu leeyahay calooshu ahkaam bay leedahay waqtigaaga xukum buu leeyahay inaku maanta waxa leedahay dadku waqtigay aflagaadayaan maanta yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ba ilaahay ina aadan baa aflagaadeeyay oo waxay caayaan zamankay caayaan zamanka iga xun zamanka iga liita zamanka iga jeeda zamanka maanta aniga halka ay dhigay zamankay caayaan baa ilaahay yiri zamankuna waa aniga baa ilaahay yiri waqtigu waayo waa aniga baa ilaahay yiri uqallibu al-layla wan-nahar maalintii habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sanadaduna ka samaysmaan qurumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxa soo dhan wuxuu ilaahay leeyahay waa aniga amarkaana iska leh maalina wax ka bedeli mayso habeen wax ka bedeli maayo afrika wax ka bedeli mayso Europa wax ka bedeli mayso lacag wax ka bedeli mayso faqriga wax ka bedeli maayo qabiil wax ka bedeli maayo qabiil hoosar wax ka naaqsi maayo ka wax waliba bedelay nidaamka gacanta ku hayo waa ilaahay inaan barano waa nagu waajib وريمانك برشديس مواجبة من سوا سنة يا فرض عين على كل مسلم وياه إيمانك إلا برتاع فرض عين وين على كل مسلم والشيء أقوله الرئي النبي محمد صحابة وبري وياه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا بلادان إيمانك أيام برني كدمنا قرآنك أيام نقول حقي ثم محيط شاقيسا تراخي زمنك إيمانك أي برتين إيا زمنك قرآنك أي برتين فرق بأول حاجة مركز سيد هذا قرآنك برجدي سيد دنبنا إيمان بنوغ الزيادة قرآنك برجدي سوا معي قرآنك أحكام دي بالله سعوتا صلاة دي صومكي زكاة دي صدقة دي حجكي أمر بالمعروف كي لأنك كذب إيمان بنوغ الزيادة صلاة دي إيمانك الزيادين إسا صومكي إيمانك الزيادين إيا حجكي إيمانك الزيادين إيا زكاة إيمانك الزيادين إسا صدقة إيمانك الزيادين إسا حقوق بني آدم كل إسكايل عليها إيمانك أجي دين تهدي كويل علينا إسا لكن وحصر معك وريي نبي قوم مد الله ببرئ الله الله مركي برتين أمرك إنه قاتان بقول بيرات ما أنت دتك مسلمين تو إلهي معرفة دي سيدون قلبك قلن هدين قلبك معرفة أين ندقن وعذرك سقف سقف قرآن كي يقانا أو صلاة دين أنتو كريم ما دعو كوا مالن قيل أيو اسكبر جينا يا وكان جماعة ضدك زيارتان وقتها أيا نقول لي سفي عم بنوصل دوينو بي بي سي دي الراديو كانوا بختيون وين نغيستين
markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna mariyo nee raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasab kaga dhigaya ma tihid nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taalla iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni baray ninka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raac ima raacayo na raac jamaacadda intii kalead soo salaamaya na raac ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhegaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaatay oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi ar cidba kuuma yidhi naga raalli hawa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor u soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen dan saacaddaa gaadhaan u malayn waad yaa ma soo gaabayaa kolka in yar insha allah in yar insha allah allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaagii iyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebiguu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb arruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayey quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluuk oo faqiiraad noo timiday adoo haniya naga bixi maysid ama xoolaha halkaa dhig oo muxamed adoo faqiira ka daba teg ama lacagtaada hayso magaalada maka ku noqo wuxuu yidhi horta nin ruumiyaan ahay buu yidhi haddaad ii dishaan anna waxbaa niga dili sow lacaguun ma rabtaan haa lacagtaydii waa tanan qaata intii kalena meel heblaayay ku aasatee kala baxo qaata nebigayga haga daba tegay ii dhaafo buu yidhi waxaa lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisa oo dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay
بارمتكو دورت إلهي بو دورت يا رسول كيس فقير مركي بحوليسي ودم ديبي وحر طريقه يبنay hadaba rasuulkii ba ka daba tagayay su'aal laga yiri waa kaas wadada mar Madiina isagoona soo gaadhin ayaa quraanku soo dagaya wa min an-nas man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad magaaladii Madiina markuu soo galayna rasuulkii Ilaahay ba hortaagan oo leh rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya ya aba yahya ganacsiga maanta Ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay baayac musharka Ilaahay aad la gashay waad ka macaashay buu rasuulku leeyahay wasali rasuulkiisa lacagta iyo Ilaahay iyo rasuulkiisa kala dooro lacagta iyo rasuulka waxay kala dooranayeen Ilaahay iyo rasuulkiisa ay qaadanayeen qabiilka iyo diinta islaamka kala doorana midkay qaateen wada mustana bahalka Soomaalidu ku dheeraysaa waa bahalka dalkeeni aan ku weynay ya Allah نصعب بن عمير وقرنا إنسان الله رالي كان نقضي مقري وأنك يقوه الرئيو نبي مدينة وصادر ويان وقرآن كبر الرئي مدينة إيادون مدينة نبي محمد ونني من مسكين لقد السن وأنك يقوري دين توقع لي يبوها رئي مدينة إنده هوغي وبتكوك مصعب يكجعل آيان ولا الكيسي كيرا إيه هو يدي أيلاد شو الناس دايي ayaa ku jiray 70kii mushrikiinta dagaalka badar lagu soo qabtay la soo xidhay iyana soo xidhay nin reer Madiino Ansaariya soo xidho haysta halka Abu Jifa Mus'ab nasaas uu dhex socda Ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii Madiina diinta gaarsiiyay weeyaan marka Abu Dulmar saas uu eego walaalkay hooyadii baa dhashay waa ku naas daayay weeyaan walaal xarigu igu adkeeyay iga dabciyay إيه شفاعات قادوا كذب عدبودي مصعب سودان تو يجيبودي يا أخ الأنصاري ولا الكيك أنصاري الرئيم دينو مرب النبي قال دودي نين ولو نكات صوح الدي دت كيسات مدح فرشك قادنا يسام النبي قال يديه كان وقت كم عشته هو يدي بحوله بدن لي لعك بدن يا مدح فرشك بدن بعد كي قادم دو تاي حرق كو أتكيبو كيدي ولا الكي أديك ما حموده وكابود أنصاري ka diintan walaal ku nahay cid walba aniga iga dhow ka yiri xariga ku adkeeyay waa gal weeyaan Abu Sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga heshiis inuu la galo inantiisii Ramla bint Abi Sufyaan waa zawjadii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday oo xoo damcay gogoshii nabigeena ku fadhiisto waa ka hoos qaaday markaas aabo ما هل دينتي النبي محمد ما هل كابي كوغارسي سي ان اباهاغي كودله غوغشاد كقادو او غوغش شاير ادو غلان ويدو واحد مي اباهي باتهي غوغش النبي محمد وغوغل طاهره ادغنا مشرك نجاسه تهي بي كوتري نجاسه غوغش النبي غوديدن هي بي كوتري اسلام مسلم اكتودا الهي يكتس دين الهي الرسول يا قيم اكتودا إنك أنا ما أنت وضرك سن حالك إن الدين تأكتي نقيمة يا لا تعيا دونيا يا وديارة ده الدين تهكا شغينه مركز الدين تشغل هذا اللقوب بندقو هروسع وايو دين تؤدي ده يدا كارراعي وحبا كارراعي مايا أو شيء كستو مالكاغا وقتيغا iyo nafta la galiya qiimiisa la gartaa موبايل كايراد wadata soo madarkaysid ilma yar inuu qurrad ku xaquuqa madu ogolan muraayadaas musbar haduu soo qadan soo xaquuqa ka waran musbar niba kiilo sokor soo iibsaday magaaladu la dhex maraya baadu sokorta ku sitay baad dalooshatay way daadinaysaa dadkoo dhan ba qayli ورسوكرت قبو حاجة قليك سكرت قيمة هيك قرنينا لأن العقبة اللي يبسدي وحبيت ترتاي شاهي معانا يسا دين تبا ما تضادنا يسا ووالكا مسلمين تي مرقى مسجد قال الله سوق قالوا سوق انت كوهر يسا انت سوق لسا يا ما بدل سدا ولي بينك ونقف عنتي دينتي بقى ما أنت إنك دادنيس إن سوق بنا صومه لما قولك كلي يكون دينا مس كل جن قعمان سوق بسنا
balligiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha Allah dhahada insha Allah dhahada waqtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuulada dhigatana fasax bay ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaaci hargeysana 2 bilood iyo wax la jira inaga xiga jamaacada waxa la doonayaa ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooda naftooda ilaahay dartii u bixiya لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية النبي يقول markii maka loo soo hijrooday buu nabigu yiri hijrad dabo maka laga hijroonaya way dhamaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jiray buu nabigu yiri jihaad iyo niyad hadii la inaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxbu rasuulku yiri maanta waxa la dalbaya in kulligeen akhyaar iyo dhalinyar iyo culimo iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsano oo nin walba maalkiisa iyo naftiisa waqtigiisa oo ilaahay dartii ugu baxo إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا يا ديار هي قعدت ويا رواد وصلوا تعالى أنا قعدت ما قوسنا وجبوتي لا تجي معي وين ولا قعدتين ما شاء الله أساس ها هيا استاجد سوما قرن هي بلوحي بلهن لا بلون أما أفر بلون أما بل أما أفرتن أي النيون يا إلهي درتين أنا بحو وان سين نيونيا وان اسقريا هدي الهي ادي بيرينا وان بحيا هدي ظروفتي سامح ويدين النيدا الهي يقريا نكيلو وان كو دعينا سركع سركع ولا ليال سركع ولا ليال وخير وين خير بين لقى مقدس تاجا ولي ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا ما شاء الله هذا ولي ان شاء الله halka dhaxda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacday wali halka igu toosan naga dhabar rag ma sha Allah haye yalla naga badan afartan iyo 2 bilood iyo bil iyo 4 bilood bisha soo socota ilaa bilaha dambe ilaa ijtimaaca hargeysa ballan ma hina waa niyad weyn waa niyad hadii ilaahay ku waafajiyana waad baxday hadii duruuftu ku saamix weydana ajarka ilaahay ku qoraya waa tijaara ma Allah weeyaan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila bu rasuulku yiri هيا والله نغا فرحيه الله نغا فرحيه كرديه ان شاء الله ما شاء الله احنا تقولي سمير dadkii qorayay waa laga batay ma sha Allah xaga damba meel la fadhiistaba meel masaajidku waa buuxa ma sha Allah ma sha Allah halkiina fadhiista iska fadhiista bas nabiga ku salliya والله نقرأ إن شاء الله سوما نيون والوحي نيون قعدت تاجا مركله هذا هو وده تاجين بقى والله نقرأ إن شاء الله حاجة سرا كاميرا حاجة سرا قاضي والنيون هنا إن شاء الله هبين دم جماعة هبين دم أنا مركز كجماعة كسوق قريب قلا اجتماعي هرجسنا ودويها وسبتمبر بس أنا كنت بالله يريحي إذا صوت ديارية جماعة عدد إلهي درت أسعد إني إيمانا ينا النصرة هلا فايدست إن شاء الله آمين هذا هي وضد بدن بينو دعينا ونود دعينا آمين هذا بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.